lamohoranit.com waxaan kusoo qaadan doonaa casharkeena maanta how to copy contact closed website, how to copy contact ama text closed website. sidee u koobiyeysan kartaa website la xiray qoraalka ku jira. yani website-ka saa loo koobiyeysan markaad saadhe uu kaa diidaya waxweyn macnihii example website-kan keyga blocks baad click siisay kadibna waxaad jeclaatay in aad qoraalkan koobiyeystid ma koobiyeysan kartid. okay iyo website kale la midka kan oo kale waxaa la yiraahdaa technology news oo kale. okay marka kan uu ka xiriyo contactiga kana uu ka xiriyo contactiga. okay sidoo kale adwanaag news isna contactiga uu ka xiran yahay. marka waxa weeyaan website walba oo contactiga ka xiran laakiin waa inaad marka hore permission aad haysataa. haddii aad permission haysan qoraalkii koobiyeystid waxa weyn taad means dee xaaraan bay kugu noqonaysa. waa inaad qofkii aad weydiisaa aad tiraa waxaan u baahanahay contactiga inay kaa koobiyeysto. hadduu ku ogolaado ku dhahdo xuquuqda ilaali wax weeyaan markaa wax weeyaan waa inaad taqaanta habka aad u koobiyeysan lahayd. hadduu laakiin kuu diido taad means iska daa. okay waxaan markaa samayn doonaa website-kan ayaan koobigiisa qaadan doonaa. iminka ma koobiyeysmayo wuu naga diidaya. okay waxaad kala soo degi kartaa software-ka website-ka www.lamohoranit.com waxaad click siinaysaa qaybteeda download kadibna waxaad kasii dooran doontaa allow copy. software-ka allow copy la yiraahdo ayaad kasii dooran doontaa. okay ninkii waa Google Chrome baan isticmaalinaa inagu Google Chrome. okay Firefox sidoo kale Firefox kuna ku shaqeynaya waad dooran kartaa allow copy. okay marka lamohoranit.com kala soo degi doonaa. waa anigoo ah Engineer Axmed Xasan Dhamaan. wixii comment igu dhaaf emailka info@lamohoranit.com sidoo kale lamohoranit@gmail.com ama telefoonka gacanta 443 ama bartan ku leenahay website-ka internet bartan ku leenahay internet-ka website-ka www.lamohoranit.com ama koobta ama xafiis ku leenahay magaalada Hargeysa suuqa bartamaha caasimadda Hargeysa Somaliland Hargeysa waxaa weeyaan Maxamed Rashaad building second third floor next to Salaam Hargeysa Somaliland. okay waxaan markaa bilaaban doonaa casharkeena. okay website-keena geli doonaa lamohoran waxaan dooran doonaa lamohoranit.com qaybta download ayaad click siinaysaa. okay waxaad dooranaysaa allow copy download waa la socotaan si fiican. okay allow copy then waxaad add to Chrome. okay add extension wuxuu ku dari doonaa extension-kaaga ku daraya. checking marka waad sugaysa inta check ku dhamaanayo. okay allow copy has been added Chrome. okay added to Chrome. okay waxaan markaa samayn doonaa restart ayaan u diraynaa Chrome-ka. okay waxaan geli doonaa website-kii extension allow copy extension-kan uu nagu jira. okay iminka waa inuu inoo koobiyeeyaa qoraalkii inaga diiday koobiga.
okay. markaad doonaysid qoraalka inaad koobiyeysid waa inaad halkan afkan waa inaad tigta saartaa. okay, hadda access baad u leedahay website walba in aad koobisiisid waad aragtaan. okay, halkan tigtaad ka saaraysaa kadibna waad koobiyeysanaysaa. every qoraal walbaad u baahan tahay waxa weeyaan access baad u leedahay. okay, laakiin waa inaad mar walba halkan ofka aad on ka dhigtaa, tigta waa inaad saartaa kadibna aad markaad koobiyeysataa qoraalka aad baahantay. ina waxaan umaleynaya si fiican ila socotaan. softwareka waxaa la dhahdaa allow copy baa la dhahdaa. websiteka kasoo degeysa lamahuraan.it.com. okay, iminkana tijaabino. eeg weli waxaa socda wareegaya. okay, kan waxaa lagu sameeyay javascript. marka si aad kan aad u koobiyeysid waa inaad halkan click siisaa settingska, dabeetana waxaad dooranaysaa show advanced settings. websiteda uu kaa diido waa inaad javada waa contact settings java dana do not allow. okay, kasigoo isla fahnay. okay, marka labada hab baad isticmaalaysaa. haddii websiteka uu kaa diido in aad copy tiraahdo adigoo halkaa on yidhi uu kaa diido waxa weeye waa inaad javada aad kasoo xidhaa halkan contact settings aad click siinaysaa kadibna waxaad oranaysaa javascript do not allow any site. laakiin waa inaad ku ilaawino markaad copyga dhameysid aad dib u xidhaa. okay, iminka haddaba aanu eegno inuu naga diido. okay, hadda waan koobiyeysan karnaa qoraalka harwanaag news.com. laakiin kan uu inaga diiday softwarekan ku shubnay allow copyga wuxuu yeelayaa websiteda wordpresska jumlada lagu sameeyey, laakiin kan waxaa lagu sameeyey javascript. sidaa daraadeed waxa weeyaan waa inaad javascript ka xidhaa. okay, waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen cashirkeena ku saabsanaa copyga sidaad uga qaadatay copyga qoraaladan ogoleyn copyga in lagu sameeyo sidaad u furi lahayd. waa anigoo ah injineer axmed xasan qamaan. waxaan naga tegaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaad like siisaan pageka, sidoo kale waxaad dooran doontaan watch video halka ku qoran tahay. wuxuu ku gudbin doonaa casharadayna complete oo youtube-ka. halkan waxaad siin doontaa subscribe. sidoo kale videoga markaad casharka daawatid halkan hoosaad subscribe ka sii doontaa, labadoos ka mid. dad halkan ka sii siyaarkaaba subscribe baad oran doontaa. okay, waa subscribe baad oranaysaa. marka subscribe markaad siisid wuxuu kusoo geli doonaa halkan baad ka arki doontaa. marka mar walba ha ilaawin inaad subscribe siisid, pageka like siisid, watch video aad si fiican u daawatid casharadii oo complete oo youtube ku jiro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.